nolosha adduunyadu waa maalmo kooban laakiin nolosha aakhiro waa nolol aan dhammaanin nolosha adduunyada waa laga xanuunsadaa adoo qani ah ayaad faqiir noqon kartaa nolosha adduunyada waa laga gaboobaa nolosha adduunyada waa laga dhintaa waxaasoo dhami nolosha aakhiro ma yaalaan hadduu ilaahay jannada ina geliyo nasal allaha dalik biasmaa'i alxusna wa sifaati alculaa an yajcalna wa iyaakum min ahli alfirdows haddii jannada aad gasho weligaa xanuunsan maysid weligaa gaboobi maysid weligaa warwari maysid weligaa ka dhiman maysid marka waxa weeyaan waa xayaato kaamila oo nuqsaani aanay meel ka soo gelin laakiin noloshan adduunyadanu joognaa waxa weeyaan waxaa run ah oo qofna aanu ka murmi karayn kaafiruhum wa muslimuhum in qof walba meeluun ay wax si ka yihiin nuqsaan baa meel noloshiisa ka yihiin ولكن نرجع آخره وحين وحياته إلهي سبحانه وتعالى أدقي وحو البؤ ونكسن ولذلك يجب على المسلم أن يحرص على أوقاته وأن يحرص على حياته حنرجع أدوية أن دون عمرك أن يوقف هذه سنة فعمرك أيام وهن قلائل عمرك أنا هي ستابا ومالما ويان مالمها عمرنا ومالما ترسن ويان إن كست هدي لغنوريش لو عمرت 1000 سنة هدي كل سنة عمر لبسيو وحويان سيأتي عليك يوم ما نباكو من دونتا إن الأدوية عاد كتبتو وموتكو هاليلو ولا شك في ذلك. علم القرآن الكريم في بيتك. bishaaro wishoy haddii barashada qur'aanka loo geli jiray safar hadda waxaad ku baranaysaa qur'aanka iyo culumta islaamka adiga oo jooga hoygaaga ama goobtaada shaqo dugsiga online-ka ee barashada qur'aanka iyo culumta islaamka duruusta sida taxanaha u bixinayo waxaa ka mid ah barashada qur'aanka iyo higaada culumta shareecada tarbiyada ubadka iyo luqadda carabiga qiraa'aadka qur'aanka kariimka iyo barashada salaada isqorashtu waa ay socotaa ee wixii faahfaahinaya intaasi dheer kala xiriir telefoonada iyo ciwaanada ku muuqanaya